waxaa magaalada Brosoville ee gobolka Minnesota dalka Mareykanka lagu aasay Allah u naxariistay Cabdiqaadir Maxamed Mursal kaas oo ahaa rugcada saxaafadeed wax badan ka soo shaqeeyay saxaafadda Soomaaliyeed ahaana agaasimihii Radio Muqdisho. Marxuumka ayaa u geeriyooday cudurka COVID-19. aaska marxuumka ayaa waxaa ka soo qayb galay qaar ka mid ah bulshada ku nool gobolka Minnesota, wariyaal hore oo la soo shaqeeyay iyo kuwa kale oo asugu soo waxbaray. dadka qaar ee ka soo qayb galay aaska marxuumka ayaa waxa ay sheegeen in mujtamaca Soomaaliyeed oo inta karaankiisa wax badan u soo qabtay waa kuwan iyaga oo ka waramaya. halyeeyaal isagoo kalaana Allah inoo soo kiciyo awlaadiisina Ilaahay subhanahu wa ta'ala ciribtiisa Allah dhawro raadkiisa Allah ilaaliyo wixii waa caruurtiisii Ilaahay ciwad khayr qaba adduunka ku siiyo iyagana Ilaahay subhanahu wa ta'ala maalin kaga farax badan yihiin aabba inay la kulmaan في جنة الفردوس على الله كل ميو. فيا وحنا لها ما دام ونعانها صوماليين لغا يقاني وحنا لهنا ولا ليالو عبد القادر محمد مرسل مسكع فينا. مع فيني. سنة كهر كدوات ولا سنة كبابا كهر شقدي دعوة الإسلام صوماليا كسعطي أصلا صحفي أها إلا هاد أنت كحسوسنا ولا يصح كراه ولا يصح كراه قفكي خلدمه بني آدم هو خلدمه أنت حسوسنا هاي صحفي ليقانه سيدا عبد القادر محمد مرسل أو دعوة توس وجرة وحن كأوجه إسقى إنه أها أنا مرخاتي كاه أحمد مرخاتي وكيه هاي علماء بدنا هل كان جوكتو إسقى صحافة كل حجرة haddana wuxuu dhahay waxaan u taagnahay dacwadaas islaamka iyo diinta islaamka in la ilaaliyo Cabdiqaadir Mursal walaalkeen Sheekh Axmed uu sheegay Sheekh Haadi dad yar kama tagin xaafad yar kama tagin ummadda islaamka iyo qaasatan ummadda Soomaaliyeed uu ka tagay Cabdiqaadir Maxamed Mursal ayaa shalay ku geeriyooday magaalada Brosoville ee gobolka Minnesota dalka Mareykanka maanta ayaana lagu aasay magaaladaasi عمر عبد الله حسن عمرناني SDN TV مقدشو.